Weli adiga oo telefoonkaaga amba kombiyuutarkaaga isticmaalaya, xayeysiis si qasab ah ma kaaga soo fuulay shaashadda. Ma kaa qasi waxaad isticmaalaysay, dhanka sare ee xayeysiintaas ma ku aragtay saddexagalka buluugan. Ma isweydiisay ujeedka, waxa ka dambeeya dhammaan waxyaabahaas. Arrintan ayaan maanta ka hadlaynaa, anagoo ka tab qaadanayna in qaar ka mid a daawadayaashu inaga soo codsadeen inaan ka caawino sida isaga joojin lahayn xayeysiimaha iswada. Programka arrintan oo idil ka dambeeya waxaa la dhahaa Ad Choices. Laga yaabo inaad wax badan ka aqoon, laakiin isaga ayaa ku yaqaan. Ad Choices waa software ismaamula oo ay samaysay iskaashatada suuqgeynta ee dijitaalka, magaceedana loo soo gaabiyay DAA, oo ah urur ay ku bahoobeen shirkado gaaraya ilaa 7 shirkadood oo ka shaqeeya ganacsiga iyo suuqgeynta. Waxaana ka mid ah shirkadahaas 4S, Anna, AF, NAI, BBB iyo kuwo kale. Iskaashatadan oo 2009kii lagu sameeyay soo jeedinta Guddiga Ganacsiga ee Mareykanka heer federaal, ayaa 2010kii soo saartay programka Ad Choices. Barnaamijkan ayaa awood u leh inuu xogtaada la socdo, sida websiteska aad booqato, waxyaabaha aad internetka ka daawato, softwarada iyo apps-ka aad degsanayso ama aad ka isticmaasho internetka, dhammaan tallaabooyinka la xiriira wax ka iibsiga iyo wax iska iibinta internetka dhexdiisa. Xogtaas faraha badan ee uu ka hayo software-ka Ad Choices ayaa waxa ay ka dhigan tahay fursad ay kugu soo gaari karaan shirkadaha iyo cid walba oo ka shaqeysa waxyaabaha aad xiisayso ama aad internetka ka isticmaasho. Kadibna shirkadaha ganacsi ee soo saara waxyaabahaas ayaa awood u leh inay xayeysiiskooda mar walba ku soo hordhigaan si aad u booqato mareegahooda internetka ama aad wax uga iibsato, amaba aad u isticmaasho wax soo saarkooda. Waana sababta aad u arkayso xayeysiimaha maalin walba. Sida lacagta looga sameeyo iyo nidaamka xayeysiintaasi tahay waa mowduuc dheer, balse hadda aan u soo laabanno sida qofka aan wax faa'iido ah ku qabin isaga xiri karo. Tusaalahan waxaan u isticmaalaynaa telefoonada Android-ka ku shaqeeya maadaama dadkeenu u badan yihiin. Si aad isaga xirto, hubi in internetka telefoonkaagu daaran yahay ama uu kugu xidhan yahay Wi-Fi. Kadib soo fur qaybta setting-ka ee telefoonkaaga, kadibna dooro halka ay ku qoran tahay Accounts and Backup. Kadib waxaad ka sii dooranaysaa Accounts haddii ay kugu jiraan Gmail ama emailo dhowr ah. Kan aad badanaa isticmaasho dooro. Haddii hal mid kugu jirana isla midkaas isticmaal. Taabo ciwaanka Gmail-kaaga, kadibna dooro Google Account. Kadib marka aad gudaha u gasho, xulo halka ay ku qoran tahay Data and Personalization. Hoos u scroll garee shaashadda ilaa aad ka hesho halka ay ku qoran tahay Add Personalization. Dooro meesha ay ku qoran tahay Go to Setting, kadibna halka on-ta ah amaba daaran off ka dhig. Kadibna si aad u dhammaystirto, raac linkiga hoose ee ciwaankiisu yahay Visit Your Online Choices. Kadibna ku fur mid ka mid ah browserskaaga haddii aad isticmaasho nidaamka Just Once. Haddii kalena isaga ayaaba hore kuu sii gelin doona browserkaaga rasmiga ah. Waxa uu kuu soo saari doonaa taxa shirkadaha iyo website-yada wax ku xayeysiista moobilkaaga oo idil. Taabo Continue, kadibna mid walba oo ka mid ah taxa kambaniyada uu soo saaray tick saar, ama si fudud halka ay ku qoran tahay Select All oo far yar ah taabo, kadibna dooro Submit Choices. Sidaas ayaadna iskaga xirtay xayeysiimihii sida amar la'aanta ah kuugu imaanayay. Haddii aad muuqaalkan wax uun ka faa'iiday, la wadaag dadka kale si ay uga faa'iidaystaan. Mahadsanid.